madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka 32 ee Midowga Afrika kaasi oo sanadkan diiradda lagu saarayo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha. Cabdinuur Maxamed Axmed oo qayb ka ahaa safarka madaxweynaha ayaa ka warbixiyay safarka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow soo gaaray magaalada Addis Ababa. wafdiga madaxweynaha waxay ka qayb galayaan shirka Midowga Afrika oo sanadkan xoog lagu saaray arrimaha qaxootiga barakacayaasha qaaradda ee ka jira Soomaaliya si gaar ah runtii mowduucan uu taabanayo. waxaa jira wafdi hordhaca uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Axmed Ciise Cawad. waxaan rajaynaynaa in shirkaas ay ka soo baxaan natiijooyin miro dhal ah oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha oo aan ahayn wax Soomaaliya kaliya ku kooban qaaradda oo dhan saameyn ku leh.